ka dhacday oo macnaha xoogaho aad u malaynaysa ummadda Soomaaliyeed sida dadka ummadda Soomaaliyeed oo dhan ma ahaane macnaha dadka mucaaradnimada u maleeyay in wax lagu dumiyo u maleeyay qaabkay u dhigeen haddana laga waayay arrintii galgala ka dhacday dagaalkii annaga iyo al-shabaabna dhaxmaray sidii looga jawaabayna taasna waxa weeye topic labaad bay noqonaysaa haddana laga waayay waxa kale oo aan ka hadlayaa hubka dhigista iyo Muqdisho sida ay macnaha dadku u fahmeen iyo sida xaqiiqdu ay tahay taasna waanu ka hadlaynaa haddana laga waayay qaraxyada dhacaya taas ayadaana waanu ka hadlaynaa ilaahay bay tiisa tahay wax kastana waxaan isku dayaynaa inaan sida xaqiiqda ah aan wajahna ayaan isku dayaynaa marka waxaan hadda ka bilaabayaa marka qodobka koobaad waxaan ka dhiganayaa qaraxyada Muqdisho ka dhacaya qaraxyada Muqdisho ka dhacaya xaqiiqda dhabta markaan abaarno dawladdu sidii uu ra'iisul wasaaruhu sheegay ama madaxweynuhu sheegayba dawladdu waa dhowr boqol oo qof iyo haddaan laga waayay macnaha inkastoo macnaha tirakoobka bani aadam dadkan caalamku ay sheegeen dhowr iyo 10 milyan ay tahay laakiin anagu 20 milyan baan anigu qabaa inaan nahay marka 20 milyan 500 oo qof iyo wax la mid ah macnaha حتى برسنتج 1% كمان نقون كران حتى و0% marka waxa loo baahan yahay dadka bani aadamku horumarka gaaray waxay horumarka ka gaareen qof kasta oo bani aadama asaga ayaa macnaha mas'uuliyadda wadankiisa isa saara baleegada waa qof kasta ayadoo cidina dirsan lacagna aan ku qaadan magacna aan ka rabin ayaa waxay macnaha wuxuu higsanayaa inuu noqdo magac ahaan dawladda Soomaaliyeed inay noqoto dawladda koobaad ee adduunyada macnaha ammaanta mudatay ayuu inaad higsato adiga ammaantaada qof shakhsiyadeed markii lagu arko dadku waxay kugu macnaha xurmeenayaan sida dawladnimadaadu ay u eg tahay ayay dadku kugu xurmeen karaan sidaa darteed dawladdaas marka qof gaar u leh ma jiro qof gaar u leh male qof gaar ay wax uu dawladda macna u sameynaysa ma jirto oo si gaar ay u shaqeynaysa ma jirtee annagoo dhan ayaa waxa sumcadayadii baa dawladda ku xidhan cidii dawlad la'aan inay iska noolaato rabta waa wax ayaga u yaala rumaan idin sheegayaa mucaarad iyo muxaafid ba waan la hadlayaa haddaan wax noqoshadayadu ma aha inaad wax noqoto ujeedadu ma aha inaad mucaaradka ka soo horjeedo ma aha mucaaradkuna inuu muxaafidka ka soo horjeedsado macna ma sameynayo marka waxa loo baahan yahay in dawladda lala shaqeeyo oo nimanka bamka sameynaya oo wax qarxinaya xaafaday soo marayaan xaafaduhu way og yihiin waa dadyow meesha ku nool dadka dhimanaya waa dadkoodii inay arintaa ayada ka waantoobaan oo dawladda lala shaqeeyo oo nabad sugidda lala shaqeeyo oo booliiska lala shaqeeyo maalin kasta waxyaabaha laga hadlaya waxaas weeye haddaan sidaa la yeelin micno badan ma sameyn doono dad taariikh ummadda ku yeelana caalamka ku yeelanaya ma noqon doono marka qof kasta waa inuu awoodda saaro qof kasta waa inuu awoodda saaro war maxaan wax ku noqon karnaa ina awoodda saarta way adoon cidna wax dan ah inay kugu siiso aanan u joogin macna taas waxaan farayaa marka dadka Muqdisho jooga waxaan saa u leeyahay Muqdisho waa magaalo madaxda Soomaaliya waa muraayadda ummadda Soomaaliyeed dadka meesha ku nool inay la shaqeeyaan dawladda waxay saameynaysaa wadanka oo dhan mid saameyn ku leh bay noqonaysaa maxaa yeelay waa muraayadii wadanka weeyo bahasha in la qabiileeyo qabiil muddo badan baan qabiil ku soo jirnay qabiilkan not make sense wax macna badan noo sameynaya ma rumaan idin sheegayaa waxaad sameynaysaan marka haddaan laga waayinay
أنا هبل بقى إيش شيء معنا ما سمعناس إلهي إنه مسكح هذا الجليو أو هنون إنه مسكح هذا الجليو إلهي كفانس يضط كاجي يضل كاجا يدين تاذا مدني ما يقبها أنت هاي واحتسموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا هل كاس هدي أتصدع وإكتو ماشى إنا ضحك الشو أيو دين تكفريسا هذا ماشى ضحكلن وحن نقول إنسانين دين تينا اللي تكوا dad nimadiisii iyo qowmiyad nimadiisiina lid ku abaad noqonaysaa marka taa waxaan ku noqon karnaa horta adduunyada maxaa lagu midoobi karaa ma garanaysaa adduunyada waxaa jira bahal jirac duulaan la yidhaah jirac duulaanku mid baa horkaca midkaa horkacaya eeg midkaa jirac duulaanka oo duulaankaas horkacaya haddii la dilo jirac duulaanka kale wuu kala firxanayaa firxashaa ku dhici jahawareer marka ummad kasta waxaa hormuud u ah dawladda caalamku maanta dawlad ku nool weeye waxaan dawlad ahayn oo iska soconahaya oo gurubaysi oo marba meel waxay doonaan isaga hadlaya macna badan ummadda uma sameynayaan run baan idin sheegaya waxa aan wax ku noqon karno waa hoggaanka dawladnimo marka dawladdaas inaanu barigantaalo oo nin kastaba meesha uu ka taagan yahay inuu baritaaro wey oo sameynaan garan waxaa loo baahan yahay marka waxaan xurmo ku yeelan karnaa inaanu fahanno meesha aanu naallo qofku markay saamayso Soomaalidu meesha ay taasho maanta markii way saameyn ku yeelato oo uu fahmo ayuu wuxuu ka dagaalami karaa inuu meesha kor ugu kaco intuu kor uga kaco inuu caalamka la tartami karo ayaa looga baahan yahay xaqiiqda dhabta taa wey انت ان اك انت لا يسفشلينayana macna badan ma sameynayso kan mucaaradka ana macna ma sameynayo kan mucaafidka ana macna ma sameynayo inta macnaha la yisfashilinayo in la yisfashilinayo macna badan ma sameynayso laakiin markaanu isku jiha u socono macnaanu sameynayna caalamkaanu la tartamaynaa waxaanu sameynaynaa macnaha muuqaal aanu iska dhax arki karno oo qof kasta oo Soomaaliya uu iska dhax arki karo ayuu caalamka dhaxdiisa ka arkaya laakiin maanta qofkii qof Soomaaliya arka wuxuu leeyahay war dadkan balaaya ku habsatay maxaa ku dhacay meel kasta oo aad marto marka waxaan uga gigilan karnaa oo aan kor uga kici karnaa inaan qof kasta oo Soomaaliya uu mas'uuliyad isa saaro oo aanan dawladda kaliya loo fiirinin inay ayadu macnaha shaqada qabato dawladda lagu sheegay shacabka weeyo dawladda tani waa shaqaalaha iyaga waxaan kula shaqeyn karnaa inaanu annagu baritaaro saxaafadda aan ku baritaarno oo haddaan ala laga waayinay aanu ku baritaaro muuqaalka saxda ah kuwa goobta jooga ay dawladda dhexe ku shaqeynayso kuwa jooga inay haddaan ala laga waayinay si toos oo action wax u tusaan oo ay cadowga kala shaqeeyaan ayaga looga fadhiyaa qof kasta meeshu joogana waxa looga fadhiyaa intii karaankiisa wuxuu ka qayb qaadan karo taasi halkaasaan ku dhameenayaa waxaan dib ugu noqonayaa hubka dhigista taasaan dib ugu noqonayaa marka hubka dhigista lagu sheegayo run baan idin sheegayaa hubka dhigista wax la yiraahdo Soomaaliya kama jiraan waxa ka jira waxa weeyo in nabadgelyada la sugo hubka la dhigayo dadka baac mushtarka siyaasiinta dadka ummadda Soomaaliyeed in ay higsato meeshii la rabay inay higsato rabta ma aha waxa laga dhigaya qofka Soomaalinimada fadhataysanaya qofka midnimadeena hoos u dhigahaya jiriga isbaarada dhiganahaya kan al-shabaabka macnaha haddaan laga waayinay diilka la leh oo qorigana haysta ileen al-shabaabkani waxay dad bay la dhiilgareeyaan oo information bay haystaan ayaga naftooda kuwa noocaasa hubka ayaga in meesha laga qaado la sifeeyo way hubka la iskala soconayo suuqa dhaxdeeda in la sifeeyo way meesha safaarada imaanaya haddaan laga waayinay shirkadaha imaanaya waa meesha wadanka laga hogaaminayay inaad hub iska dhax wadato ama haddaan laga waayinay dadka argagax adgelisa dad ilaa meesha waa goobtii ajnabigu ay Soomaaliya ka soo galayeen way haddaad argagax ku samayso oo dadkan caalamkan qoryo suuqa lagu wato lama yaqaano marka sidaa darteed dadka Muqdisho jooga hubka haddii ay leeyihiin macnaha hubka ma dhigayno oo isma aaminayno hadday waxa ka wadaan
ها آذان مامل قبوليد يدودا هكدي وانقشتان ميشاس مامل قبوليد يدونا أما هعيدا ميان أما هدي وانقليان والشرعي هوب شرعي يسن ودد عقلك إيا علمك وصاحبك عنتيسا إنو هوبكا قلوي oo ku noqon macnaha aad gobolada maamud goboleedya jira been isma sheegeen 4.5 ba wax lagu qaybsaday 5 ba ka dhigay 5 ka wax lagu qaybsaday nimanka bulshada 5 ka ah oo dadka macnaha adariska la leeyahay gobol kastay degan eegada gobol kastoy degan systemka gobolkaas maamul goboleedka systemkiisa bay la san qaadanayaan oo ku dhaxnool yihiin hadday ciidamo yihiin hadday bacmushtar yihiin hadday siyaasiyiin yihiin hadday yihiin bulsho rayid oo iska caadi oo ummadda ku dhaxnool waxay kala qayb qaadanayaan maamul goboleedyadooda meesha ay joogaan bay ku sharciyeysan yihiin oo hubkoodana lagu sharciyeynayaa hadday hantidooda ku waardiyeynayaan hubkaas iyo hadday naftooda ku waardiyeynayaan oo ay siyaasiyiin yihiinba maamul goboleedyay leeyihiin imaa magaalo madaxda anagu waxaa idiin sheegayaa magaalo madaxdu waa magaalo madaxdii Soomaaliyeed qof hub ku dhax wadan kara ma jiro qof magaalo madax baan anagu macnaha ka arrimin kara kaligay leena ma jira maamulka magaalo madaxda dawladda federaalka ayaa ku shaqo xukunta doorashadeeda iyo haddana laga waayinay maamulkeeda iyo wixii meesha ka arriminaya waa wax federaal ku saabsan way aad iyo aad baan ugu mahadinayaa qaabka haddaan laga waayinay maamulka muqdisho hadda loo soo agaasimay waa si aad iyo aad u wanaagsan oo ummadii Soomaaliyeed oo dhan ay iska dhaxarkayaan dad aqli u saaxiib ah baa qorsheeyay dad wadaniyiin ah baa qorsheeyay qabiil kasta oo Soomaaliya maanta muqdisho gudoomiye ka yahay waa wax xaqiiqo oo la og yahay taas ayada waa wax la higsanayo oo macnaheedu ma aha macnaheedu ma aha meel reer degan yahay baad ayaa reerkii lagu dul xukumay haddaad iska dhaadhicinayso tinka baarid anigu joohar kuguma xukumahayo beledweyne kuguma xukumahayo haddaan laga waynay baydhaba kuguma xukumahayo waxaan waa dawlad federaal wey dawladda federaalka waan wada leenahay haddaan wada leenahay waa inaan wada agaasino muqdisho maamulkeeda inaan wada cabirno wey oo aanu nabadgelyadeeda cabirno wey caalamkii oo dhan waa meeshii ay naga arkayeen wey haddii caalamkii oo dhan meeshay naga fiirinayaan ay halkaa tahay caqliga saliimka ah wuxuu nafarayaa in dawladda federaalka ay maamusho muqdisho hadda ka hor anigu clip aan hal koor soo diray markii dadku siday u hadlayaan aan arkay dadka qaarkood siday u hadlayaan markaan maqlay baa waxaan is idhi bal waa yahay muqdishada nafteeda hala kala qaybiyo qayb dawladdii ay ku shaqeynayso iyo qayb macnaha gobolka banaadir ah oo haddaan laga waayinay ama ha lagu daro haddaan laga waayinay hirshabeelle ha lagu daro ama se ha lagu daro koonfur galbeed macnaha inta la kala qaybiyo qayb dadka banaadir gobolka banaadir la yiraahdo iyo qayb dawladdu ay ku shaqeyso oo magaalo madaxda muqdisho la yiraahdo oo macnaha saaha loo mar baan sidaa idhi haddaan sidaa u eegayna waxaasna xataa wax duxloo shaqeynaya ma aha jaro online baan ku jira ayaan lisa soo wicin markii online ka lagu jiro please marka waxaan idin sheegayaa oo xaqiiqdu ay tahay marka muqdisho waa muraayadii ummadda Soomaaliyeed waxay u baahan tahay in hubka la dhigo muqdishona reer kaliya ma laha haddaad isleediin reer baa hubka laga dhigayaa reerka muqdisho iska loo hubka dhigaya waa maxay muqdisho ma baadiyan ka hadlay anigu kama hadlin haddaan lagu leeyahay ceel rifiid iyo anigu kama hadlin haddaan laga waayna iyo meesha leeyahay koonaha kama hadlin anigu afgooya kama hadlin haddaan laga waayna kama hadlin balcad kama hadlin waxara cad iyo xagga xataa kama hadlin xataa waxara cad xataa hal in laga jaro weeyo xagga iyo jooral raaci hadii la doono waxaan ka hadlayaa waa muqdisho runbaan ka wada hadleenahay indhaha muqdisho waa inay noqoto meel dawladda federaalku ay ka arrimiso oo dadku aynan hub haysan oo dadku horumar u taagan yihiin oo bani aadamka noo imaanaya aanu la dhiil gareeno oo si
haddaan ala laga waayinay bani aadamku siday u wada ilaan qori adoo wata dadka si aad ku soo dhaweysa way adag tahay marka dowladda federaalka in loo dhaafo maamulka muqdisho waa muhiim taas halkaasaan ku dhammeynay oo hubka muqdisho in hubka laga dhiga weeyo hubkaa la dhigaya haddaadan ogoleen bliis waxaan kaa codsanayaa maamul goboleedkaaga aag haddaad reer puntland tahay puntland aad haddaad hirshabeelle tahay hirshabeelle aad haddii aad tahay haddaan ala laga waayinay haddaad tahay koonfur galbeed aad haddaad jubbaland tahay aad soomaaliya haddaad somaliland tahay aad soomaaliya garan hubka muqdisho laguma haysan karo dad qabiil ah muqdisho ma degana rumaa idiin sheegaya dadka caanaha keena oo muqdisho caanaha ka keena waxaa la idhaha xamar dee iyo xamar baa la idhaha taa waa la isla ogyahay dadka xagga caanaha keena qaarna waxay aadayaan oo ay ka qayb yihiin oo da ogtihiin koonfur galbeed qaybna waxay ka mid yihiin hirshabeelle waa qasab taas waan wada ognaa been ma sheegayno xamardeya qaarna waa hirshabeelle qaarna waa koonfur galbeed meeshan inaa carqalad laisu sheega ma ah kuwaasi markay magaalada imaanayaan hub lama imaanayaan hubkooda waa inay balcad soo dhigtaan oo ay muqdisho ayagoo caana wado oo caws wada ama se waxay kale ay wada ama xoolo wada inay imaadaan weeyo bani aadamku siduu u dhaqmaanu idiin sheegaynaa waa qaabka dawliga ah wey qaabka dawliga ah wey oo macnaha dadku u shaqeeyaan wey marka muqdisho hub laguma wadan karo muqdishona looma nisbeen karo reer baa hubka laga dhigayaa qofkii yidhi ow reerku maamul goboleed buu leeyahay reer aan maamul goboleed lahayn ma jire maamul goboleedkaaga aad biliis oo hubkaaga halkaa ka sharciye balcad markaad soo maraysa hubkaaga iska soo dhigo imow muqdisho ku dood haddaan siyaasad haddaan ka hadlo ama baaxmushtar ka noqo that is your business maadaama baaxmushtar tahay hubkaaga waad haysan kartaa waa la diiwaangelinayaa haddaad siyaasi too al-shabaab ka baqayso hubkaaga waad haysanaysaa waxaa lagu iclaaminayaa hubkaaga inta aad haysan karto waa lagu iclaaminayaa 4 AK baad haysan kartaa already waa la sheegay dowladdu way sheegtay waxaa lagaa rabaa 4 AK-47 ayaa lagugu waardiin karaa waxaa wixii ka badan ileen dowlad kuma soo weeraraysa oo dowladdu waa safe waad ogtiin been horta waxaan la hadlayaa hawiye nimanka hawiye oo siyaasiyiinta inaan ereygaa idhaahdo nimanka hawiye phobia ka qabaan hawiye ina markaan idhaa phobia ka qabaan laakiin dantii baa qasbaysa inaan magacaabo ilaa cid kale oo dhib haysta ma jirta run baa idin sheegayaa waxaana in la isku nacana ma ah waa run weeyo waxaana aad iska dhaadhicinaysaan oo hubkii baa la iska dhigayaa oo reer hawiya hubka laga dhigayaa oo daarood baa macnaha haddaan alla laga waayinay na qabsanahaya aad leediin war daarood meeqa mayl buu idin jiraa ma daarood baa muqdisho ma intuu gaalkacyo ka soo weerar tago buu muqdisho idinku imaan karaa miya ma intuu kismaayo ka soo weerar tago muqdisho idinku imaan karaa waryaa caqligu inuu shaqeeyo wey caqligu ha shaqeeyo caqligu inuu shaqeeyo wey bani aadam haddaad tihiin daarood meel uu ka soo weerar tago idinku imaada ma laha dowladda federaalka ana waa dowlad federaala oo haddaan alla laga waayna ummadda u dhaxaysa way naga wada dhaxaysaa muqdishoay ka shaqaynaysaa hubka dhiga hubka haddaadnaan dhigaynin goboladiinna iyo meesha maamul goboleedkiina uu jiro taga oo ka diiwaangasho oo halkiinaas ahaada markaad muqdisho imaanayso adigoo bani aadam ah oo bulsho rayad ah oo dowladda isu dhiibay oo u gacan dhiibtay ilaa cid ku weeraraysa cid kugu haysa male dowladdani nasiib waxaanu ku yeelanahay labadana ra'iisul wasaariga madaxweynuhuba waa niman hambal ah qalbigooda markay hadlayaan baad ka dhex akhrinaysaa niman hambal ah oo aad iyo aad waxaan ka baqayaaba inuu ilaahay nagu cadaababa nimankaas ilaahay inuu dhibaato kaleba nagu rido ayaga dartood baan ka baqayaa nimankaas markii aad aragta qalbigooda iyo siday u hadlayaan waxaad leedahay ilaahay baan kugu dhaartay waxaad leedahay waxaanu ku dhex badbaadaanu gallay baad ayaad ka fikiraysaa inaan ilaahayna badbaadiyey ayaad damiirkaaga gelinaysaa oo run ah marka waxaan idiin sheegayaa hubkana sidaa wey taa labadaa waan ka hadlay labadaa arrimood waan dhameeyey waxaan ka hadlayaa oo kale puntland iyo weerarkii al-shabaab dad badan oo soomaali ah ka warran qof soomaali ah haddii dad soomaali ah oo al-shabaab ood garanaysa oo cadowgii ummadda soomaaliyeed ah
oo cadowgii bani aadamka ah dad haddaan alla laga waayanaya ama iska saxuuranaya ama iska afurahaya haddii inta la soo ataaga ileen qorshe ma ku jirin dagaal iyo waxaas maan inkastoo askartu inay soon iyo soon la'aanba askarigu inuu iska ligan yahay oo taa u taagan yahay muhiim weeye waa qasab weeye taas waa qasab ama soon la'aan aabbaha iyo hooyada sirta militariga looma dhiibo run baan idiin sheegayaa sirta meelaan u soconahayo xaaskayga ma ogaan karto markaan military ahay meeshaan u soconayo waxaan samaynahayo never ever nobody oo la aamini karo oo sirta militariga loo dhiiba ma jirto marka qofka militariga ma seexan karo soon iyo soon la'aan ma seexan karo waa xaqiiqo weeye inkastoo taasi ay tahay wax abaxsan oo qalad oo anigu arrinta ayadaa aanan aad iyo aad macnaha eed aan saaraya macnaha systemka meesha ka jira qaladkii uu galay waa waxay ayagu ay mas-uul ka yihiin wey laakiinse cadow inaan leenahay baanu ogeenba in cadow al-shabaab la yidhaah oo soon iyo soon la'aanba ku soo weeraraya inuu jiro baanu isla ogeen oo run oo dadkao dhan ogyahay wey marka arrinta ayadaa in laga diyaargaroobo weeyo laakiin dadka soomaaliga ah oo macnaha ka dhigaya eeg u durbaantubaya oo weliba fantasi u samaynaya oo baadhi u sameeyey ummad soomaaliyeed oo al-shabaab ay haddaan ala laga waayinay ay soo weerartay oo haddaan laga waayay weliba aan maaragtay si qaldan laysu maaragtay laakiin annagu waad ogtihiin run baan idiin sheegaynaa arrintaa ayadaa arrin ummadda soomaaliyeed qof damiir soomaaliyeed oo ku jiro dad soomaaliyeed oo bilaa sabab la'aan ciidan soomaaliyeed oo meel iska jooga bilaa sabab la'aan aan cid weerareenin oo deegaan waxay ku fiican ciidamada Puntland oo run baan idiin sheegayaa waa qabalin ahaanna uma hadlayo oo run ciidamada Puntland ayagu wax ma raadsadaan haddaan la soo raadsan never ma soo raadsanayaan run baan idiin sheegayaa cidna ma weeraraan haddaan la soo weerarin laakiin haddii la soo weeraro qaniyadaasi dharbaaxa jaan baa lagu bedelayaa dharbaaxa jaan believe me waana run wey waadna wada ogtihiin dadka laysma xaqiro Puntland ciidamadeedu waa ciidamo tababaran oo jawaab ka bixinaya wixii soo abaara jawaab ka bixin kara wey oo si degdeg ah weliba jawaab uga bixin kara